Caro maroodi oo la qabtay oo cunaysa jiir yar oo aadan dib u arki karintan. Caro maroodida badankood khatar yar ayay u yihiin dadka oo ay ku jirto tan caanka ah ee la yidhaahdo noble false widow statula nobilis. Laakiin ugaad dooniyahan nusku intiga ah wuxuu si yaab leh uga sarreeyaa miisaankiisa. Sida laga soo xigtay daraasad 2.3 tusaale ahaan, caro maroodiga noble false widow wuxuu caado ahaan u ugaarsado xayawaanada leh lafdabarta kuwaas oo ay ka mid yihiin qorraxda, fiidmeeraha iyo hadda jiirarka yaryar. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraib si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto mahadsani. Dabta ahaantii, qorayaasha daraasadku waxay duubeen tan dambe goob aad u xun oo ku taala bannaanka daaqad qol jiif ah oo koonfurta England, halkaas oo caro maroodi dhedig ah oo noble false widow ah ay hoos dhigtay oo cuntay jiir yar sorex minutus. Inkastoo magaceeda jiir yar pygmy shrew waa weyn tahay marka la barbardhigo caro maroodiga oo sida caadiga ah cabbireedeeda tahay qiyaas 5 sentimitir 2 int dherarkooda iyo 4 sentimitir dabo dheer. Waa in ka badan 3 jibbaar dherarka caro maroodiga noble false widow ee 4 sentimitir haddii aan la tirin dabada oo miisaankeeduna qiyaastii 1 jeer ka badan yahay. Inkastoo xayawaanada lafdabarta lahu inta badan ay cuntada ku jiraan caro maroodida waaweyn oo ay ku jiraan qoysaska tarantula, waxay caqabad u yihiin caro maroodida yaryar sida noble false widow kuwaas oo aan u qaban karin xamaarada ama naasleyda sida tarantuladu u qaban karto. Sidaa darteed, sida caro maroodida widowka dabta ah oo ay ku jirto tan caanka ah ee black widow iyo redback spiders, noble false widow ee la xidhiidha waxay la tacaashaa ugaadh ka weyn iyadoo isku daraysa sun xoog leh iyo xiriir adag. Taasi waa wixii ka dhacay guri ku yaal magaalada Deadhester, koonfurta England, halkaas oo khabiirada xayawaanada ee jaamacadda Galway Downs Sturgis ay duubtay fiidiyogan cajiibka ah ee hoose. Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa shabaga caro maroodiga noble false widow oo ku yaal bannaanka daaqadda qolka jiifka ee guriga Deadhester, iyadoo naasle yar oo xiriirta ku xidhan yahay. Falanqayn dambe oo ku saabsan hadaagii naasluhu wuxuu caawiyey cilmi baarayaasha inay gartaan inuu yahay jiir yar pygmy shrew. Jiirkii weli wuu noolaa shabaga gudaheeda, sida ay sheegayaan cilmi baarayaasha, inkastoo la arkay oo kaliya oo sameeya dhaqdhaqaaq yar oo dhowr ah bilowgii dibkiisa. Taasi malaha waxay ugu wacan tahay sun xoog leh oo neerfaha ah ee caro maroodiga, kaas oo loo yaqaan inuu sababo uryaamin degdeg ah oo muruqyada iyo neerfaha. Caro maroodigii waxaa la arkay oo u dhaqdhaqaaqaya hore iyo dib u dhexdeeda jiirka iyo alwaaxdii sare ee daaqadda isagoo adeegsanaya xiriir si uu jiirka kor ugu qaado qiyaas 5 sentimitir sida ay sheegayaan cilmi baarayaasha. 2 daqiiqo kadib, caro maroodigii wuxuu ugaadhkiisii kor ugu qaaday alwaaxdii, qayb ahaana wuu ka baxay araggii. Wuxuu jiirkii ku duubay xiriir, wuxuuna cuni jiray 3 maalmood, kadibna wuxuu ka tuuray wixii ka hadhay shabagiisa. Sida ay sheegayaan cilmi baarayaasha, hadhaagii jiirkii waxba kama hadhin dhogor, lafaf iyo maqaar mooye. Caddayn ma jirto sida caro maroodigii markii hore u qabtay jiirkii, laakiin fursad wanaagsan ayaa jirta inaysan shil ahayn. Tani waa warbixintii saddexaad ee 5 sano gudahood ah oo caro maroodi noble false widow ahi ay qabato xayawaan lafdawar leh. Qaababkooduna waxay tilmaamayaan la qabsasho ugaarsashada caadiga ah ee xayawaanada lafdawarta leh, sida ay sharaxeen cilmi baarayaasha daraasadooda. Daawadani waxay sii muujinaysaa in noble false widow si fiican ugu qalanto inay hoos dhigto ugaadh weyn iyadoo isku daraysa sun xoog leh, xiriir aad u xoog badan iyo habdhaqan ugaarsasho oo qalafsan, ayuu yiri hogaamiyaha cilmi baarayaasha Mithil Dugon, kabiirada xayawaanada ee jaamacadda Galway. Jiirkii malaha wuxuu fuulay geed wisteria ah oo u dhow daaqada qolka jiifka, sida ay qorayaan cilmi baarayaasha, halkaas oo caro maroodigii ugu xidhay xiriir, ku curyaamiyey sun, kadibna kor ugu qaaday alwaaxdii. Tani waa markii ugu horreysa ee hubno ka mid ah qoysaska caro maroodiga tiridiide lagu duubay iyagoo ugaarsanaya jiir yar Ireland ama Britain, sida ay hustaan qorayaasha daraasadda. Waxay sidoo kale tahay markii ugu horreysa ee nooc ka mid ah caro maroodida false widow ah laga warbixiyo inay ugaarsadaan jiir yar meel kasta oo dunida ah. Noble false widow waxay u dhalato Madeira iyo jasiiradaha Canary, laakiin waxay noqotay nooc galad ah oo qaybo kale oo adduunka ah qarnigii la soo dhaafay, malaha ugu caansanaa halkaas oo warbaahinta tabloid ee khaldan ay si been abuur ah u tilmaantay caro maroodiga inuu yahay khatar dhimasho leh. Inkastoo noble false widow ay bixin karto qaniino xanuun leh oo laga yaabo inay sunta bakteriyada cudurrada keena oo ay la dariso sun neerfaha, ma ahan mid weerar jecel, mana aha mid dhimashada u ah dadka oo khatar ka yar ka tahay caddada bulshada sida ay qaar ka mid ah maqaalada wararka ay soo jeedinayaan. Intaa oo la yidhaahdo, waa nooc galad ah oo laga yaabo inuu dhibaato u keeno dadka iyo duurjoogta, sidaa darteed waa caqligal in iftiin badan lagu tuuro caro maroodigan yaabka leh.
Noble false widow waa carumaroodii aad u xiiso badan waana inaan weli wax badan ka baranaa ayuu yiri waayeelka qorayaasha Johan Dumbar kabiirada xayawaanada ee jaamacadda Galway. Waxaan aad ugu mahadcelinaa xubnaha bulshada kuwana la wadaaga daawashadooda. Tani waxay noo ogolaanaysaa inaan si fiican u fahanno sida noocani galad ahi uu saameyn ugu yeelan karo annaga iyo deegaankeenna. Daraasadii waxaa lagu daabacay Ecosphère. Ma jiraan su'aalo kale oo ku saabsan maqaalkan?